تفسيرك سورة الناس. سورة الناس وسورة بقولتبن يا فراد يا قرآن كريمك waxay ku soo degatay magaalada Madiina waxay ka kooban tahay 6 aayadood 20 kelimadood iyo 80 xuruuf suuradani waxay mataan la tahay suuratu al-falaq waxaana lagaga magan galaa ilaahay sharka waswaaska shayaadiinta jinka iyo insaankaba qul a'uudhu bi rabbin nas waxaad dhahdaa nabiyow waxaan ka magan galayaa rabbiga dadka barbaariya malikin nas boqorka dadka ee arimahooda maamula ilaahin nas ee ilaaha dadka min sharril waswasil khannas sharka yacni xumaanta waswaasiyaha qarsoon الذي يوسوس في صدور الناس وسواسي لابها يعني قلبيده ددك من الجنة والناس كواس وحوسواسينيا او جنيه انسبا